isimada Puntland xayadii bay dhumiyeen. Isimada Puntland waa duran yihiin. Hadday beri ahaan jireen marjac loogu laabto samanta bixinta Puntland, hadda beele sifahaas iyo karaamadii ay shacabka reer Puntland ku lahaayeen. xaggee salaadu iska qaban laada. kow, beelo ayaa wax lagu qaybsaday. waxay xigtanimo ku soo xusheen xambus aan beer bisil kala goyn karin oo Puntland la haray. golayaasha baarlamaanada Puntland iyo federaalka xulkoodii waa lagu khasaaray. labo, waxaa looga hungoobay isimada inay maareeyaan ifbaxaalaha khariban oo Puntland soo wajahday. waxay ku milmeen siyaasadda, waxayna ku seegeen inay sii ahaadaan marjacii talada loola laaban jiray. maradii baa ka dhacday. saddex, waxay qaarkood la safteen xoogag sharwadeena oo Puntland burburinteeda qoriga u soo qaatay halka ay ka qaban lahaayeen oo isugu tegi lahaayeen. taasi waxay isimada ku sifaysay dagaal oogayaal. afar, waxay ku heshiin waayeen inay shir isugu yimaadaan wakhtigan adag ee kaalintoodii isimeed la tabayo ama loo mucurtooday. Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa geelu hadduu labada adin oo dambe habeed ku yeesho waa gad lagu yaqiinay. haddiise labada adin oo hore uu habeed ku dhaandhaamo ama ku geyngeymo waa gadu la soo baxay. habeedii afarta adinba waa ay ku maluuqeen. taasi waxay keentay in magaca isim bulshadu ka yaqiiqsooto. shan, waxay ku tartameen laaca dhadhamada siyaasadeed oo ay halajaflaysi uga barteen. waxaa caan noqotay inay sarrifmaan oo maalin walba isim cusub lagu caana shubo. hunguri caaran baa yimid. hadday xigmadi ahayd 3 baa saldana kaa qaada, garweecsan, gacan guran iyo guddoon jilicsan. 3dii sifaba badankoodu waa ay yeesheen. taasina waxay weydaysay saldanadoodii iyo meeqaankii ay ku lahaayeen bulshada. waxay magac iyo muuna tireen sumcaddii Puntland. 6, waxay magac iyo muuna tireen sumcaddii Puntland oo ay hoggaanka ugu ahayd qarannimada Soomaaliyeed iyo badbaadinteeda. waxgaradka iyo bulshada Puntland waxay ku dhawaaqayaan halkii cir laga sugayay baa ciirayaama ka timi. helayaahu walla isin dambe ayaan go'shaala iisoo huwan. jidka kaliya oo Puntland u furan waa in xeerka la ixtiraamo lagana maarmo isimada subaacoobay oo qof iyo cod lagu maareeyo geedi socodka siyaasadeed ee Puntland iyo tan Soomaaliyaba.